cadaado oo galmudug ka tirsan waxaa ka furan dhowr xaramood oo loo diyaariyey in lagu sameeyo wajiyo midoweysan kuwaas oo si maalinle uga shaqeeya deegaankan goobaha qaabilsan qurxinta dumarka ayaa shaqabuur u noqday dhalinyaro badan oo habla ah furnaashaha xarumahana waxay meesha ay ka saartay duruufo in muddo deegaanka ka jiray islamarkaasna keentay in deegaanka meel ka baxsan loo aado qurxinta hablaha soomaalida ee gobolka ayaa wax badan ka hooseeya kuwa isku qurxiya caasimadda ama magaalooyinka waaweyn waxaana lagu sababayaa in si sahlan aan lagu heli karin gebi ahaanba agabka kiimikada ah ee dumarka ku siyaadiya bilicda Miski Beauty Salon waxaa qayb ay ka tahay goobaha lagu talagalay qurxinta hablaha waxaa halkan si mala u soo buuxdhaafiya tira hablaha kuwaasoo doonaya in qurxin lagu sameeyo dhalinyarada hablaha ee Miski Beauty Salon shaqaabuurka ka dhigtay ayaa ii sheegay in xaruntooda oo kaliya aan lagu talagelin qurxinta sidoo kalena ay tahay goob lagu baro sida loo qurxiyo isla markaasna ay soo saareen dhalinyaro badan oo xirfad ahaan aad u sareeya goob noocan deegaanka ay galshay bilic dumarkana qayb weyn ka qaatay Miski Axmed Maxamed wagaasima xaruntan waxa xilligan boqonina ay ku guda jirtay qurxinta habla meel kala duwan uga imaaday waxay ii sheegtay in xarunteeda ay soo booqdaan dumarka goobtan isku qurxinta u imaada marka laga reebo midabeynta dumarka in ka badan 10 dumar ah ayaa qaadanaya culumta ku saabsan bedelida dumarka midabkooda dabiiciga ah ka soo horjeeda asxaabta u balasan kulankooda hasaawaha kuwa ku casuuman goobaha aroosyada ayaa si ka duwan qurxinta guud ee dumarka ayaa lagu farsameeyaa halkan asxaabta ku balasan kulanka hasaawaha iyo kulanka dhalinyarta cawiska ayaa sheegay in muuqaalkooda wax badan iska bedeleen tan iyo markii halkan lagu diyaariyay agabyo ka duwan kuwa hore cadaado looga helay magacaygu waa Qaali Cali Cumar waa cadaado bulkiir ku yaala ama salon Miski Beauty Salon waxaan u socdaa kulan ay leeyihiin dhalinyarada meel oo bar kulan ee dhalinyarada ee shir ku leeyihiin ama kulan isku imaatin ah u socdaa maya xiriir ma jiro waxaan u socdaa meel ay dhalinyarada ku kulmaan ay waqti ku wada qaataan horta aniga meeshan waa jecelahay mar walba inaan isku qurxiyo maadaama ay seeloonada kala ka duwan tahay meel aad ay u qurux badan ay tahay haday cilaan noqoto haday makeup noqoto in sidoo kale waxa isku qurxinaya maadaama uu imaanaya u socdo meel bulsho badan ay joogto Ifraax Maxamed Shadane waa arday wali qaata duruusta waan macaamiisha Miski waxay ii sheegtay in laga casuumo arooska qof ehel ah suuragalna aysan hayn in sideeda ay ku tagto waxay ii sheegtay in isku qanacsanin midabkeeda isla markaasna ay jeclaystay in ay yeelato mid ka bedelankeedii hore magacaygu waa Ifraax Maxamed meeshan waxa waaye meel dumarka lagu qurxiyo salon waaye aniga marka maanta marka xaflad saaxiibtay u socday marka ayada saan iyo qurxis dabcan wax badan saa u qurxana u jeeda Soomaa awal caadi qof caadi gurigiisa ka imaaday taani maxaa ahay ardayda wax ka barato oo cilaan saar iyo waxsaasa ka bartaa agaasimaha xarunta dumarka lagu qurxiyo ee Miski Axmed Maxamed waxay sheegtay in xarunta laga helo agabyo kasta oo ka qayb qaata qurxinta dumarka kala duwan ee goobteeda imaada isla markaasna deegaanka wax weyn ay ku soo kordhisay xirfad ahaan iyo aqoon ahaan intaba si waxaan u sameynaa qurux badan ma sha Allah sida hadda gabadhaas u jeedid oo kale waa aroosada maanta diyaarinay sida gabadhaas oo kale oo iyadana u socoto caruuska casuuman iyo gabdho hore oo saakadii hore is hagaajiyay ma sha Allah si aad u qurux badan oo qurxinaa dumarka gabadhaas u quruxsan tahay make-upkeeda u marsan yahay taashkas casriga ah oo wadato kale oo wax cusub ku soo kordhinay deegaanka isqurxinta dumarka ee gobolka ayaa la sheegaa in laga wanaagsan yahay gobol ahaan taasoo bilow ah in si caadi ah aan lagu helin agabyada ka qayb qaata qurxinta gobolka xarumaha cadaada ku soo siyaaday ayay sheegeen in meesha ay ka saareyso baahida ka jira deegaanka isla markaasna cabasho badan laga muujiyay Xasan Axmed Shabeelle TV Galmudug